jimco wanaagsan meel kasto oo aad joogtaan iyo si kasto oo aad inoo daawanaysaan intaba waxaan rabaa maanta insha Allah taala inaan ka hadalno arrin ka soo kordhay xagga immigrationka oo ku saabsan dadka green cardka oo apply gareynayay xaaska ama aan iraahdo orida iyo masayga haddii aad application buuxsanaysay oo green card aad rabto inaad ugu apply gareyso qof aad rabto inaad ku keento dalka Mareykanka guur ahaan inaad ku keento aad u baahan tahay waxa soo kordhay warkaas ayaan rabaa inaan idinla wadaago sida aad ogtihiin ba arrimaha immigrationka bariyahan waa adag yihiin xaaladuna waa meel adag bay maraysaa dadka dhan waa lagu adkeynayaa applicationadii waa iska adkaadeen keenistii waa iska adkaatay inkasta oo weli sidii la filayay aysan u adkaanin haddana waxyaabo badan baa socda oo iska soo daba dhacayo oo aan dadka applicationka buuxsanayo ama qaxootiga ahaadaan ama asylum ha ahaadaan oo darbi kabood ha ahaadaan aan favor u ahayn waxtar badan aan u ahayn aan ku bilaabo dadka hadda waxay soo saareen shalay amar cusub Donald Trump iyo maamulkiisa iyo qolyaha immigrationka qaabilsan intaba haddii aad tahay US citizen oo passport haysato iyo haddii aad tahay green card haysataba oo aad rabtid inaad qof u apply gareysid xaas ahaan aad ku keento ama oday ha ahaado ama maama ha ahaatee aad rabto inaad qof ku keento guur ahaan inaad ku keento waxaa loo apply gareeyaa sidaad ogtihiinba green card ayaa loo apply gareeyaa green cardkaas markaa qofka aad ku keenayso ama dalka dibadiisa ha joogo ama dalka Mareykanka already ha kula joogo oo intaba isku guursada sharciyada ayaa la adkeeyay sharciga koowaad oo hadda la adkeeyay waxa waaye processing time-kii waa la dheereeyay xilliga macnaha marka apply gareyso in faraha lagu soo diro in approval lagu siiyo in maaragtay applicationkaaga laga shaqeeyo delays waa soo daahid waa la daahinayaa oo arrinkan hadda waxay stretch gareeyeen xilligii applicationka uu qaadan jiray qofka markii uu guur ku apply gareeyo waa la dheereeyay oo meesha hadda warqadda ay ku soo dirayaan oo jawaabta ah meesha ay markii ku soo diraan xilligii ay expect gareyn jireen in ay qaadato ama ay rajeynayeen inay ku soo dhameystiraan applicationkaaga waxba iska bedelay oo waa la dheereeyay so processing time waxaad ku tala gashaa in xilligii uu dheeraaday waxa kale oo ay shalay soo saareen in ay baaritaano dheeraad ah ku samayn doonaan dadka ay shakiga ka qabaan not only that taas kaliya ma aha in ay rabaan in cadeymo dheeraada ay soo rogeen si loo hubiyo in aad qofka aad guurka ku keenaysid ama aad marriage-ka ugu apply gareynaysid inaad isqabtaan iyo in kale scrutiny of marriage waa la yidhi waxaa la rabaa in la ogaado haddii qofka marka Mareykanka isla joogtaan oo kale maxaa cadeymo ah oo laga rabaa baa la yidhi waxaa ka mid ah cadeymaha laga rabo oo lagu weydiin karo in adiga iyo qofka aad u xareynaysid applicationka oo aad guurka ku claim gareynaysid haddii dalkan aad wada joogtaan oo kale weeye waxaa lagu weydiin karaa in aad wada leedihiin bangi aad ku wada qoran tihiin joint bank account inaad wada leedihiin oo aad adiga iyo qofkaas hal bangi ku wada qoran tihiin uu jiro sidii dad isqaba oo kale dee xaas iyo odaygeeda say iyo ooridiisa oo kale ama oori iyo saygeeda oo kale inaad hal bangi wada leedihiin oo kale sidoo kale in aad wada degan tihiin oo guriga aad degan tihiin apartmentiga liiska iyo warqadihiisa aad ku wada qoran tihiin oo kale baa caddeyn noqon karta waxaa caddeyn noqon karta baa la yidhi social interactions sida aad u wada xiriirtaan whatsappyadiina messageyada aad wadaagtaan iyo communication historyga dee wixii idinka dhexeeyey oo dee xaas iyo odaygeeda ama oday iyo xaaskiisa ka dhexeyn lahaa in la helo so waxaan dhan waxa waaye waxay baaritaan ku samaynayaan in la caddeeyo in aadan guur qaldan xaraysanin oo aadan si qaldan isugu dayin inaad qof u keento oo aad iska ilaaliso waxaa kale oo caddeyn lagaaga baahan doonaa baa la yidhi affidavit oo kale request for evidence hadda waa la caddeeyey affidavit-ka waa warqad caddaynaysa in aad qofkan isqabtaan waxaana kuu soo qori kara oo aad ka heli kartaa marka cadeymaha request for evidence cadeymaha laga rabo oo kale
baaritaan hadda wuu cad yahay marka hore ma kala cadaan jirin oo sheekadu intan way ka fududeed xilligii uu joogay Biden xilligii Biden uu joogay sheekada inta waa ka fududeed laakiin hadeer cadeymaha warka waa la cadeeyay waxa lagu dhahay affidavit warqad cadeyna oo aad ka keentay ama saaxiibada ama aad ka keentay friendskaaga ama familygaaga oo cadeynayo in aad is qabtaan aan ku daro waxa kale oo la soo kordhiyay formska waa la bedelay formka I-485 ka ama I-130 ga oo aad buuxsan jirtay waxaa laga dhigay updated mid cusub oo soo baxay baa jira January 20keedii sanadkan kaas baa waxaa la yiri waa in application ka dambe anybody oo hadda wixii ka dambeeya buuxsanayo inuu application ka soo isticmaala haddaad outdated applications haddaad soo isticmaasho ama oo checklist waxay keeni kartaa in lagu soo diido oo la soo reject gareeyo application-kaagi haddii aad isticmaashay application-nadii hore so application-kan cusub maxaa ku qoran oo extra ah waxaa ku qoran qayb yar oo waxay ku dareen oo paragraph yar oo sheegayo in aad cadaynayso kuna dhaaranayso in application-kan aad buuxinayso si sax ah u buuxinayso oo qofkii aad buuxinayso in uu sax yahay oo qofkana qof si sax ah isu qabtaan uu yahay oo uusan ahayn fraud bay ku soo dareen so kaasna way ku soo dareen lacagtii lagu buuxinayay waa la kordhiyay updated formka waa la bedelay higher feesna waa lagu soo daray xogaa lacagtina waa la kordhiyay waxaa kale oo hadda idana soo kordhay dadka green card ka haysta oo apply gareysta travel permit-ka ama travel document wax loo yaqaano waqtiga ayaa lagu sii dheereeyay qofka hadda waxaa laga dhigay processingkiisa 8 ilaa 14 bilood bay marka sanad iyo 2 bilood ilaa 8 bilood ilaa sanad iyo 2 bilood bay hadda qaadanaysaa baa la yiri qofkana kama tegi karo dalka ilaa uu helo parole-kaas oo uu ku soo geli karo ama warqadaas hadhow uu ku soo noqon karo ilaa adduunka hadda waa adkaaday xaaladuna waa iska adag tahay waxaa kale oo hadeer dib ay u soo celiyeen beri hore way jiri jirtay dhaxdan group 5 muna waa ka warrami doonaa insha Allah dhaxdan way jiri jirtay markii hore laakiin hadeer waa la soo celiyay dhaxdan markii imaaday Biden waa la joojiyay ama dad yar baa lagu sameyn jiray oo la select gareeyay oo laga shakiyay waxaa soo korodhay interviewgii qofka la yeelanayay ama xaaska ama odayga iyo xaaskiisa whatever ay tahayba ama orida iyo saygeeda hadba kay tahayba waxaa la soo celiyay interviewgii dadka laga qaadi jiray oo hadeer fewer interview waivers baa la yiri interviewgii dadkii marka hore waxay ahaan jirtay waxa kugu filayd oo kale certificate-ka guurka bay ku qanci jireen qolyahan USCIS-ta laakiin hadeer waxaa la soo rogay oo dib loo soo celiyay in interview lagula yeesho oo qofka keenayo interview lala yeesho qofka la keenayo interview in lala yeesho marka taasna waxay keenaysaa baa la yiri taasna waxa ay keenaysaa in waqtigu uu dheeraado sababtoo ah in balan hesho lagaga qaado waraysi oo qofka immigration officer-ka waraysi ka qaado baaba waxay noqonaysaa xilli dheer in ay qaadato bay noqonaysaa so si aad u heshid appointment-gaas baa bilo kugu qaadan karta arrinkaa waagi dhaweyto intuu Biden joogay waa la iska joojiyey Biden xilliguu imaaday interviewga waa la joojiyey qof iyo dhif iyo naadir ah oo laga shakiyey bes ayaa maaragtay interview laga qaadi jiray so joint bank statements bangi ku wada qorantihiin oo kale lease haddaad document iyo guri aa wada degan tihiin sawiro photographs over time baa la yiri communication records text messages emails call logs waxyaabaha dad isqaba ay wadaagaan oo kale evidence-yadan ayaa la ururinayaa affidavits from friends and family in cadeymo laga helo ama warqada affidavit ah oo waalid qof uu ku soo qoray familkaaga ah oo cadeyn kara inuu isqabtaan iyo asxaabtaada ay ku soo qortay so hadeer waxaa la sii adkeeyey I think Somalis are going to face limited options when it comes to US immigration programs. Nancy waa kacsantahay wallahi masha Allah. And there shouldn't be a huge issue as long as you stay legal. So maaha waxaaga si sax ay yihiin as long as things are staying perfectly right. So the best thing you can do
waxaad samayn kartaa baa la yidhi get your ducks in a row waxaaga dhan diyaarso use the new application forms lacagta oo fiiga hadda waa la kordhiyey the right amount of money soo dir all the supporting documents and evidencega soo raaci si baa la yidhi waxaa laga yaabaa markaas in interviewga hataa lagaa wave gareeyo laakiin haddii waxaaga qulub ay ku jiraan waxyaaba badan baa dhici kara waxaa dhici karta A in lagugu soo celiyo applicationka B in la reject gareeyo applicationkaagi oo dib inaad usoo buuxiso ay noqoto in interview lagu ballamiyo xilligana kugu dheeraado waxyaaba badan baa soo kordhay hadda the bar is higher sheekada hadda sidii hore ma aha way ka sarreysaa meeshii hore oo ay joogtay arrinkan waa lasii adkeeyey dadka xareystay travel permitkana it's taken almost 14 months 8 to 14 months uu qaadanaya 8 bilood ilaa 14 bilood inaa hesho qof kasta oo green card haystana waxay ku boorinayaan in aadan dalka ka bixin adiga oo aan helin advanced parole to return to the country waddanka inaad kusoo noqoto adoo aan qaadanin warqadaas has ku bixin bay yidhaahdeen so arrinkan ayaa shalay lasoo kordhiyey foomkaa cusub inaad buuxiso inaad fiiga lacagta extrada bixiso evidencegan iyo waxan iyo warqadahaaga iyo applicationkaagana inay sax yihiin in order to avoid further delays sheekadan saas oo aad ka adag tahay si aad isaga ilaaliso marka applicationkaaga in uu dib u dhaco inta ayaan rabay maanta inaan idinka dabageeyo waa idin salaamahayaa intii aan ku kulmayno program ka duwan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh peace